wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ayaa kulan la yeeshay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer gaar ahaan odayaasha labada beelood ee muranka dhuleed ka dhaxeeyay muddooyinkii u dambeysay. Kulankan ay ka soo qayb galeen barsaabka gobolka Togdheer odayaasha golaha guurtida iyagu muddooyinkii u dambeysay u joogay dhexdhexaadinta muranka dhuleed ee ka dhashay deegaanka Baladiiriya Guuleed waxaana wasiirka warbixin ka siiyay xaaladda guud ee halkaasi barsaabka gobolka Togdheer. Arrintaas meel wanaagsan bay maraysaa wasiir waxuna u baahan yihiin labada dhinaca walaalahii dhulka hadaad aragto waa 9 kilometers ama 10 kilometers labada magaalada dhisan inta isu jiraan in ay ku adee xiwaana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Walnacad iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ayaa ugu baaqay odayaasha labada dhinac inay isu dawacaan isla markaana ay ku dadaalaan sidii ay xal waara uga gaari lahaayeen murankan dhuleed ee muddooyinkiisa soo jiidanayay. Toorta aan idinka digaya wax weeye inaan siyaasad nin magaalo jooga oo aan amal hayn oo afku xoog la ah oo aan idin furi doonin inaan idin rarin ina hoosta isaga xidhataan labadiina qoys ee wax wadaaga arinta intiina loo socay bulshada inteed kala wadin sugaysa haddii qolo dabciso xariga ceeb maaha inay laakiin bogiina buucad sumariyaan oo isukiin soo dhaweeyaan oo marba meel idinka tusaan bay idinla joogaan inta arrintaas dhamaanaysana way idinla joogayaan idinkuna kuwii xariga dabciya ee xagga wanaaga ka eega inaan noqotaan dhulkaas guurina ma wareen waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo guurtida golaha ee maanta xildhibaanada ee halkan fadhida runtii hawlaha dalka Soomaaliland markay adkaato lagu soo ciiro luntii laguna badbaado aad baan ugu mahadnaqayaa dadka aad mintishaan oo dambe u tahay idinkana dambe idin tahay waxaan wada ognahay halkaas oo qura maahay meelo badan baa ku wada nooshiin warda sidad kuwa ugu wada nooshiin ayaa tanna ugu wada noolaanaysa hawleedu kuma yara ilaahay waxaan ka baryayaa inuu la qabto idinkuna aad aamintaan murankan dhuleed oo soconayay muddo dheer isla markaana laga soo saaray laba go'aan ayaan ilaa iyo hadda dhammaan waxaana la rajaynayaa in go'aan laga gaadho murankan dhuleed ee ka dhashay deegaanka Baladiiriye